بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبو بكر محمد يلحو إن شاء الله تعالى وحين شرحنا قيبتها لبا يكونت حلين تمثلين qaybtan waa qaybta 2 ay noqonaysaa qaybtan waa mas'alo markaa ku saabsan aan ku shaqeyn doono flexibility ama quadratic equation tan markaan sharaxo intaan sharaxaadda hoose u guda gelin ka hor inaad ka shaqeyn karto isku day bal istijaabi heerkaaga xalinta mas'alooyinka inta la egyahay okay kadib haddii aadan fahmayna waad daawan kartaa oo dhamaystiran kartaa insha Allah ta'ala. Okay, masaladu waxay dhacaysaa sidaan soo socota. A rectangular garden has an area of 14 meters squared and a perimeter of 18 meters. Find the dimensions of the rectangular garden. A rectangular garden has bear samaysan qaab leediya ayaa has an area of 18 meters squared ayaa bedkeedu waxa uu yahay ama waxa ay leedahay bed 14 mitir laba jibaaran and a perimeter of 18 meters iyo wareegaas oo dhererkiisu ama wareegaas uu yahay 14 mitir. Find the dimensions waxa soo saartaa idimada ama dhinacyada of the rectangular garden ee beerta oo samaysan qaabka leediga. Perimeter waa naqaana perimeter waxa weeye markaad midalan wareeg inta shaygu ama wax ama adig tusaale ahaan haddaad beerta geeska istaagto dhinacyada ku soo wareegto oo markaad ku soo laabato inta aad soo jartay baa la yiraahdaa perimeter. laba jibaar bedkuna waa inta gudaha ku jirta oo halbeega laba jibaar ama meter square ama centimeter square ama kilometer square ama halbeega oo laba jibaaran oo imisa meter laba jibaar baa ku jirta imisa kilometer laba jibaar baa ku jirta imisa centimeter laba jibaar baa ku jirta bedkaas baa noqonaya aan qaybtaas u gelin aan masalada u soo laabto. Okay, masalada horta fahamkeedana aan fahmin rajin insha Allah waa beer u samaysan qaab leediya oo bedkeedu yahay 14 mitir laba jibaaran perimeterka isla beerta perimeterkeedu yahay 18 meters ayaa haysataa amana bedkii waxaad haysataa perimeterkii hadaba dimensions kama dhinacyada ee laga doonayaa inaad soo saarto beerta balaacid soo saar dhererkeeda soo saar. waxaan ognahay beertu ama leedigu waxa uu leeyahay laba balac iyo laba dherer laakiin halkii balac oo aad hesho in kala wada haysataa iyo hal dherer haysato ka kala haysataa opposite sides are equal way waa laba dhinac soo jeeda kasta isku mid. Okay, aynu shaqada u galno insha Allah ta'ala. Okay, ugu horeyn xarfaha inuu qaadan maxay noqon waxaan oqaanaa in inta badan markaan ka hadlayno leediga waxaan dhahnaa perimeter uu leeyahay perimeter ana perimeter dib aan qaadanaa laba lagu dhiftay L lagu daray laba lagu dhiftay W halka L ay inoogu taagan tahay length L waxay inoogu taagan tahay length halka W na inoogu taagan tahay width oo balaci ah inta misna freeless L na waa length sidoo kale waxaan naqaanaa area ama areada leediga in lagu helo L oo lagu dhiftay W haddaba anagoo haysana iminka waxa arkaynaa in wareegga haysano area-dina aan haysano xalayna marka perimeter imika wuxuu waxa uu inoo leeyahay 18 halka area markaas inoo leeyahay 14 ku bedela marka meel kasta perimeterka ku bedela 18 halka area-na ku bedelo 14 xalayna marka perimeterka muxuu ahaa 18 ayaa waxa markaas wuxuu leeyahay laba lagu dhiftay L oo lagu daray laba lagu dhiftay W intana area u guda gelin ka hor waxaan leenahay laba lagu dhiftay L lagu daray laba lagu dhiftay W equal 18 maadaama labada ay dhamaan ku dhacsan tahay L iyo W dhinac kalena 18 laba loo qaybin karo dhinac kasta waxaan qaybinayna laba xaga u qayb laba isla bix laba isla saar hadan ku sax maxaa soo haray L oo lagu daray W ayaa waxay leeyahay 18 loo qaybiyo laba oo ah 9 okay marka equationkaas ayaynu meel dhiganayna marka waxaan yeelanaa area waxaan ognahay waxa lagu helaa L lagu dhiftay W aan soo sheegnay marka area waxaan ku bedelaynaa 14 booska L tahay L W equationka marka equationkan L lagu daray W ayaa la eegsayaa soo ma equationkaas hadaynu xalino ka waran oo L ama subject aan L ka dhigno ama W aan macnaha W equal 9 minus L buu noqon ama L equal 9 minus W ay noqon waxaan ka dhigay L bayno
subject waxaan ka dhiganaa w ina subject dhigan waxaa leenahay w ayaa waxay leegtahay 9 l storage marka l maadaama positive ay ahayd oxybarisa negative marka waa l marka waxay leegtahay 9 oo laga jaray l bay leegtahay imika equation kan waxaan haysanaa area ama fartban inuu leeyahay l w hayleena equation kan soo qaadayna ugu horeyn equation ka soo qaadayna area equal lw Soomaaliya ku 14 equal lw markaas waxaan leenahay 14 waxa ay leegtahay l bracket fro w boska waxaan ku dilinaa 9 minus l 9 minus l inta marka waxay noqonaysaa in 14 ay leegtahay 9 l gudaha ku dhifo l ku dhifo 9 waa 9l minus l ku dhifo l na waa l square hal iminka halkan waxaan ku haynaa equation baan ku haynaa equation kaas oo qori karno l square oo minus plus 9l equal 14 equation qaabka qori karno ayna hayna idan square ka oo l saaran l square waa soo ma calaamaduna waa ka waa minus dhinaca kale plus 9l calaamaddu plus bay ahayd equal 14 equation marka waa equation marka 14ka ayaan gudaha soo gelinaynaa 14 aan gudaha soo gelino markaan 14 gudaha soo gelino kadib maxaa dhacaya waxaan leenahay minus l square plus 9l minus 14 dhinaca leekiisa ugu saar waxay ku soo bixaysaa maadaama inta 14 tahay 14 calaamadda oo plus ah maadaama plus ay tahay minus ah iyo xagana ku daray ana waxa weey inta minus 14 inta minus 14 waana bixi doona akhtar soo har doonta dibna 14 inta jirin doonta marka 14 oo minus ay wax saar noqonaysa okay negative ka l square lama ogola square ka tirada square ku saaran yahay ama xarafka uu soo saaran yahay negative lama ogola negative maxaa lagu baabinaya negative baa lagu dhifanayaa ama negative baa lagu qaybinaya negative 1 ama negative ku dhifo ama u qayb marka aan ku dhifo ama u qayb waxba soo muhiim negative umba t positive and negative isku beddelisa t negative and positive marka inta minus ku dhifto noqonaysa l square minus 9l plus 14 equal 0 equation kaas markaas equation kaas wuxuu qoran yahay qaab ah quadratic equation la quadratic equation waxaa lagu qeexaa a square plus b plus c equal 0 marka qaabkii ayuu qoray tadraadeeda marka equation kan aynu ka shaqeynaa habka adeegsanayna laakiin hab badan baa la adeegsadaa dabcan laakiin habka inuu isticmaali doono wuxuu noqon doonaa by factorizing laakiin dhowr hab la jiray ayaa kala la adeegsan karaa okay marka waxay leenahay markasta waxa la fiiriyaa b-ga iyo tirada dambe constantga ayaa la fiiriyaa waxa leeyahay maxaa ay tahay laba tiro oo markii isku dhifan 14 keenaya oo plus waliba markii la isku daro na keenaya 9 oo calaamad ay tahay minus ugu haddii halka ay noqoto plus qada bedelo haddii halka ay noqoto plus tirada constantga haddii calaamadeedu plus noqoto ugu tirada waxay ka imaaday laba tiro oo markii la isku dhiftay labadooduba calaamadu isku dhaxay ama wada minus ahayeen ama wada plus ahayeen idan laba minus markii la isku dhifto plus baa soo baxa markii la plus la isku dhifto minus baa soo baxa go'aanka marka waxaad ka qaadanaysaa halka baad ka qaadanaysaa calaamada maxay tahay b-ga boska 9l ka calaamada hore golaha calaamadiisa maxay tahay waa minus dasdaradeeda laba number oo la isku dhiftay oo plus kan 14 waa minus inta baa miskadib maxaa xiga laba tiro maxay laba tiro markii la isku dhifto 14 keeni kara maxay laba tiro markii la isku daro 9 keeni kara maxay ugu horreyn tirooyinka keeni kara 4 markii la dhifto waa hal lagu dhifto 14 waa 14 laba lagu dhiftay 7 waa 14 dabcan tirooyin kale oo markii la isku dhifto 14 keenayo laba halka 4 iyo 7 aan ahayn ma jiraan daradeed yaa fulinaya shardigan dambe ee ah minus 9 waxaan isku ogeyn calaamada in markasta calaamada aan minus qaadanin Soomaa minus baan qaadanaa balse isbarkooda yunaya hal ku dar 14 waa 15 balse markii laba lagu daro 7 maxaa soo baxaya 9 baa soo baxaysa hadaba tirooyinkaas waa 2 iyo 7 calaamaduna ay tahay minus weeyaa xulana marka l squared minus boska 9l kan waa midil maxaan ku dilaynaa 2l iyo 7l minus 2l minus 7l in labadaba minus isku kan soo ma plus 14 equal 0 kadib waxaan laba in isku qabanayna waxa leenahay l square minus 2l intaan guul u xir plus minus 7l
plus 14 equal 0 equal 0 haka 0 okay nakoro kacna wax yar inta markaynu ogaano negative kan qaybta hore maxaan ku saari karnaa l square minus 12 l baan ku saari karnaa dabcan l bay way ka xalana l xr ida maxaa soo hara l minus 2 ila l kan shaad dambe ee ku dhacsan 2 da factor ahaan kaas ila bixisa intaana maxaan ka saari karnaa negative 7 baan ku saari karnaa xalana negative 7 ida maxaa ku soo haray l minus afar tano qaybi 7 waa 2 intaas marka maxay laagtay sir markasta ugu markasta waa in halkaas ku noqdo halka hadana isku noqon waxa ka jira dib ugu laabo waa macna okay marka waxaynu sameeynaa imika inaynu isticmaalo factor zero tintaas balse ugu horeyn labadan maadaama isku l-2 iyo l-2 isku mid yihiin factor kooda l-2 noqonaysa ma l-2 wana qaadanina laakiin l iyo -7 isku qabo l laga jaray 7 l laga jaray 7 halkaas waa 7 lagu dhifan ku dhifanaynaa l-2 intaas ayaa waxay laagtan sir now marka mid kasta leekiisi sir leekiisi waxaan l laga jaray 7 ayaa waxay laagtay sir or l laga jaray 2 ayaa waxay laagtay sir marka l maxay noqonaysaa 7 or ama l maxay laagtaanaysaa ya ama l waxay laagtaanaysaa 2 leen 2 waxay laagtaanaysaa waxay manastan mugta xagga la wareejinaysaa waxay noqonaysaa imika noqon doontaa balaas xagga ku maraysa inta marka waxaan haynaa l inay mar laagtahay mar laagtahay 7 marna laagtahay okay marka maxaad yeelaysaa idil waxa lagu dibxaan dimensionska beerta ilaa Soomaaliya marka go'aankeeda qadanaysaa kaliya waxa la dhahaa dimensionskaas beerta waxay noqonayaan 7 mitir oo dherer ah iyo 2 mitir oo balaac ah dhinaca balaac beertana saana sameysan mugti beertu saana sameysan tahay okay kan soo beertu waxay sameysan qaab saas mugti saas oo kale loo xilada dherer iyo waxay leedahay balaac هذا اسمه سنتهاي حلنا هاي دينعان وحاصبح يا كضبة متر دينعان وحاصبح لابو هالباقة كل متر بقى بس بيردن هذه درجينه كي عم وحي رصاص عمل عبراء برون اوكي marka inaan masalada ku sharaxo wax kasta waxa muhiim ah masalada qaabka loo shaqeeyo dad saas aragtida shaqeyn kartaa muhiima marka masaladan tan waxa rajeynaa insha Allah taala in aad fahamtay dhererka waxa inoo soo baxay 7 mitir halka baleec inoo soo bax 2 mitir inaad masalada kale ee qaabka oo kala hadad aragto inaad ka shaqeyn doonto rajeynaa insha Allah taala qaybta tan laba iyo kontonaad inta ayaan ku soo gabagabeynaa insha Allah taala وإن قيبت حكته بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.